gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ku xigeenadiisa xubnaha guddiga fulinta inta halkan ka joogto gudoomiyaha bangiga IBS Bank saaxiibkan gudoomiyaasha naadiyada iyo kooxaha heer qaran dhammaan inta joogta marti sharafta bahda saxaafadda gaar ahaan bahda saxaafadda sportiga dhalinyarada kale ee halkan joogto dadka aad u daneeyo kubadda cagta salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib kullay kubadda cagta adduunka meel kasta horumarkeeda ama developmentka footballka waxa foundation u ah ama tiir muhiim u ah aan dhihi karno pillar weyn u ah waxa waaye sponsorship taabagelin ama maalgelin haddii caawa marka bangiga International Bank of Somalia loo gaabiyo IBS Bank ay heshiis la gaareen xiriirka Soomaaliya kubadda cagta wakiilka naadiyada iyo kooxaha inay taabageliyaan horyaalka Soomaaliya heerkiisa koobaad waa arin aad iyo aad u baahan in soo dhaweyno waa soo dhaweynayna soo dhaweynta kadib kaliya ma inaan soo dhaweynayna aad ayaan ugu mahad celinayna sababtoo ah bangigan wuxuu wadada u furayaa ganacsiyada kala duwan business entity kala duwan ee dalka ka jiro inay u soo jeestaan inay maalgeliyaan ama taabageliyaan arrimaha sportiga waana muhiim ayagu laftirkooda qayb ay ka tahay arrimaha business entity marka laga hadlayo waxaa jiro wax la dhaho CSR corporate social responsibility waxay leeyihiin mas'uuliyad dhanka bulshada marka caawa IBS Bank aanu muujisay mas'uuliyadda dhanka bulshada ay leeyihiin oo ah taabagelinta heerkeena koobaad horyaalkeena heerka koobaad loo bixiyay Somali National League aad iyo aad u soo dhaweynayna waxaana leenahay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta halaba jibaaro dadaalada oo indhaha hay'adaha ama shirkadaha uu ugu soo jeedinayo ahmiyadda ay leedahay in laga qayb qaato horumarka sportiga gaar ahaan kubadda cagta waa u jeednaa maalmihii la soo dhaafay xulkeena dibadda ku maqan xulkeena diyaar garow wuxuu ugu jiraa tartanka Israareebka ama qualify-ga World Cup-ka waxay nooga baahan yihiin dhiirigelin waxay nooga baahan yihiin garab istaag waxay nooga baahan yihiin sida xiriirka ay ugu raadiyeen tasiilaad fara badan ayadoo duruufo badan ay jirto in la gacan siiyo marka bangiga IBS Bank ku soo dhawaada bahda Soomaali football ku soo dhawaada howlaheena insha Allah gacmo wada jiraan hawsha ku qaban doonaa waan idin soo dhaweynaynaa mar labaad waxa uu hambalyeena bangiga IBS Bank iyo xiriirka Soomaaliya kubadda cagta gudoomiyaha guddigiisa fulinta hawsha waxaan ay noo qabteen aad iyo aad u mahadsantahay